kaftan aan xajiniyo weerku xagan lahayno wariyayaal la soo xulay xogta shacabka siinayo ya siyaasad ku xeelde siyaasadda ku xeelde. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إذا لهانتنا غيرتها وذا نجدي سنة سايكو سود وهذا برنامج كحق ورنا راديو مركبلي وسجالك بشهر نوفمبر لبكون إيشان إلى باتنا قضى بذا برنامج كحق ورنا عاواتكم أغليدون تانا وحاكم إذا وزير كأمني جا كونفور قلبيد حسن عبد القادر محمد وشاقي عند نول لجوبو كونفور أفريقيا يعني كوارك الجرني عبكستو دمبيجي شلي كله كله هيد نهاريس ملو سمين دونو قدومي أبابول أو إسنا كاللي دعالاسي وأن أيان كوغارني إنان سوق بانو كوبي ديلي أوديغا ويلكا وحاسيدا سيشيغي قدوميها قبل خشب اللذا هوسي إبراهيم آذن علي نجاح وزير كوحيقين كقاديدكا أهنا حلي بانجيغو ورئيسي بحيي أيان لويديي وحادثكا آدمتشو وقبطي أفرتي سنو اللغو دورتي وادماضي محيطهاي إسماعيل عمر قلي مدحوينها جبوتي أو كهالي دورشدا مركلي ويسكسو شرحايو وضبضاسي قضبكالي وداسونا يدكولي جيسان دونتان برامج كحقورا نعاوا لبقبدا برامج كرا واحد مغلي دونتان حبنتي كلماني هايستان سيدان وانا غانا سيدان وانا قرنا حتى يقعان تسانتهاي سربي عدد سيدان وانا غانا سيدان وانا قرنا حتى يقعان تسانتهاي سربي عدد برامجka waxaa soo saaray halkaan idin kala socodsiinayo anigu waa Yaxya Cabdirisaaq Soofe dadka farsamadu waa Maxamed Xasan Cabdullaahi waa mar kale iyo barnaamijkii xog waran لحظة قاردود أدونكنا وامريو ولقي تنو كله no وبرهت الله كعفيو لح قاردود ما هي عالم كوا شن قاردود وكريه ورما أنا بوربه هي لح قاردود بالغدي وين هذا رتل حادنا توما يا هيد هي قارد الصومالية ما ينقع دلا هو يابه قرم إنه قارد نقني مركان يرني تبن مدحوينه يتبن دولة دولة إسبر برصعدة وحاسة وحلا أركول مغلي ولا ما ينفهم فدر المعنيه السا أكو بالله برنامج كحق ورن عاوا وزير كأمني كونفور قلبيد حسن عبد القادر محمد وشاقي عند نول لجوبو كونفور أفريقيا يعني كوارك الجرني عبكستو دمبيجي شلي كله كله هيد نهاريس ملو سمين دونو. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا فضانا جيك إن كهذا النوع عدد كدياس الدجمة والوين قف كسته أو عن كحقدر ندلي أو ميل سيك الدمدي ولا يبقى أنكو تعسيين إن دعذاس فولو حمايته هايته ونوقع عمباريان إن إلهي إن نهريسو قفكي قردورداس جيسدي أما دعذو إنكاس فولو حن جيسدي ندولده يعيدن كأمنية معمولك يو لننشل هيران يو مع الشعب كدولده كونفور قلبيد وليلكو قاعدة تلابوين وذا جرء إلا مالنتي دعذاس ديدي إلا يهده القليل كجري ولين همباليه يعيدن كأمنية معمولك قبل يدقمو iyo odayaasha dhaqanka reer walaweyn talaabooyinka iyo qaadan yaan hambalyeeyeen wali hadda la hayn sheegay in gacanta la ka dhigi dadkii la ka eedayaay in sida naxariis darada ee walan direen waliba diljileys ma kareebna wal guween taas oo wal hor la aragay hayn wal Soomaaliya dadkii la ka aragay hayn qof la dilay wal gorday laakiin in la gubo South Africa ka aragay jarnay wal hadda geeka araadan لك أرجع جريمة إذا أنكو حقنا dadkaasna ilaahay idin sheeysadan ka dhaqsiya badan guddiga amniga degmada wali faraana in cadaalada la horsheeno maadaama gacan la hageliye waajib kasta oo yoo leeyina la marayo sidan ka dhaqsiya badan iyo waqti kale nin ku dhum wali kala faday in ana si guud intuu ku baaqal lamada beelood oo hadda is ugaarsadahaya colaad sideeba wali leey ka dhimaday kurii leey ka dhimaday ama gabarey ka dhimadaas
wali dad han faa'iideeya sumale wali siinka baaqanay nabad in heblow koo kan dilay waldoobi koo was wal weelay waldoobi intii la gurufaday wali ku fayle nabad in la ku shaqeeyo nabadna la ka wada noolado dadka dad eheleew dad is dhalay abtay aysan eew wali lana nabadaas ka wada noolada heedo amniga oo military le daraawiish le booliis le wali faraane oo horeyna farnay cid kasta oo jeesato fal dembi oo degmadaas wala weyn dhatiya ama banaashka jeesato gacan baraka qobada wal naxariis la raaw aylan soo binay dembigi usu jeesidi isla dembi kaas lamad cadaalad iyo dhadhamiyo qof kasta oo jeesado langna sharciga makuwiin langna mayla raay qabiil gadaalshay ma gala karo langna maamul gadaalshay ma gala karo dadka iyo dhan reer koonfur galbeed shacabka meelasay ka wada nool lanka guriga haysado muuriyaanta falaw dadka in iska dira oo umutaasay si qaldan wala fahansi falaw ama umutaas reer ka wala falaw reer ma nagada umutaas iyo dhan reer koonfur galbeed dawladda koonfur galbeed mas'uul ku ah heedo amniga marka wali faranyiina imaamul gobol idegmo wali faranyiina qof kasta oo dhibaato jeysada eeridaas dhibaato ka jeysay in cadaalad dhadhamiyo koonfur galbeed sidii ablan landili agtiya naxariis mantaalo mana malqaray koro heedo wali lana marka oo kana nagaane amniga degmadaas wala weyn yoo iska jiraan booliis military daraawiish inta wali faraana sida in ka dhaqsiya badan in dadkii hataa qobadeen gudiga amniga iyo an fadheeday cadaaladda waafajiya dadka kala dhiman oo la waaysiin sida in ka dhaqsiya badan in la qobado waliba waxa sidoo qof sanadin sheegay inta ta gacanta la ka qobaday dadkii dilka fool la xumaaytay oo de Soomaalida dhanku gilgilitay aragaaye suubiyeen in may la raay hata gacanta amniga ka jiraan ilaahay idin sheeg gudiga amniga no faraana in sida in ka dhaqsiya badan degmadaas fadheedan go'aanada iyo nahanin dadajano hanin fuliya lana horjeeyo cadaaladda tiirkii cadaaladana la wada dhadhamiyo sidii hortaba caadadan ahayd lamada reerood wala inka baaqana reer kast is xakameeyo qof la dili qof kale la dilay wal faa'iido u sulay majaro sharciga in shaqeeyo muhiim ah dinigaas kalena wali lana lanki lanka gardorooday dili usuna sharciga la horsheenay hal ogaado ciidanka amniga meelaha hata dhacdanka dambeeyay shileediya mu kool galaaya meel way kala hore wala ka jeesadeen ku hool gala doona ciidamadaas amniga in la shaqeeytaan sanfaraan shacabka reer wala weyn information ka in saydan sanfaraan tuugada dadka iska dhamaaya hayto meel ka gabadayaan in sheegtaan iyo sanfaraan amnigana ilaahay ballan qaaday reer koonfur galbeed yoo waa amni soo ciidamadii oo amniga kula shaqeeyaan la fada yoo sagaara lan qariyana dambiile ilaahay idin shay iyada ma hasantiin wali rajeeyanaya oo cadaaladda lagu aragi la horsheeno umada dhagna ka wada faraxaas ya rajeeyanay in la arago maalmo hataa socdo oo waliba in ka dhaqsiya badan salaamu calaykum raxmatullaahi wabarakaatu gudoomiye abaabul oo isna ka hadlay dhacdadaasi maanta 9 bisha tahay 2025 maalin axada waxaan rabaa meeshaan inaan uga hadlo wax yar ma ahano nafaal la gooyay shabeellada hoose ka dhacay bari weyne waaya umalayha wala weyn waxaan rabaa waxa ka dhacay meeshaas horta waa ka tacsiyaha inna lilaahi wa inna ilayhi raajicuun golaha badbaado bulshaa fadhiistay waxayna ii soo xil saarteen inaan ka hadlo arrintaas waana ka tacsiyahaynaa waxaan rabaa mas-uuliyaddaas dadkii oo lahaay oo koonfur galbeed oo khaladkaas ka dhacay waxaan rabaa inaan cabdicasiis lafta gareen waxaad moodaa xoogaa isirsafeyna inay meeshaas ka jirto dadka walaxay maantoo kasoo gudbeen lagula kacow haayo marka cabdicasiisoo walax meel oo yaallo oon urayn oon halaabayn waaye midda dhacday mana ka hadlowhaysid waa aamusan tahay waxaan rabaa aamusnaantaada wax bay ku sii dheelee waxaan rabaa waxa oo hadda meelaha ka dhacdhacayane oo wadaadkaas la gubay lana dilay
anna ku cusub magaaladan aan hadda degannaha soomaaliya aan degannaha ku cusub waxaan rabaa walaxum qofki sameeyo waxaas waa u socayaan weligiis aana aan ka herayn iyo magacaan ka heraynay naqaayaan cabdicasiisow waxaan rabnaa arrintaas inaad xalliso in la xalliyo waxaan maqlaayay xildhibaankana saaka waa dhegaysahaye asagana hadda walax oo soo dhowaashaahoo weyn kama dhex muuqan waxaan rabnaa wadaadkaas marxuumkaa waa dhintay xoogaa manoo waalnayne beriga ma waalno waa iilow jiifaa dadka ka dambeeya ha loo naxo xoolaaleyda ha loo naxo qof oo beriga xoolo ilaashatumahaas waxaa ku nool miyigeeda qof dhuxul gurato dhuxushina waa loo diiday qof xoolo ilaashato amba beera falato dadkii aan dagaal loogu darin jiilaalaa ku daba dheeraaday cabdicasiisow dadaa lagu raaciyey dadkina uma naxow haysid waxaan rabaa eeddaas aniga qof kale uma wado ciidan uma wado ciidanka waa la xukumaa siyaasaddaas waxay ka hor imaan doontaa cabdicasiis lafta gareen meeshaas maana buliyay u taha looma geli karo diyaaradda wuxuu rabin saddexataa kaargo waatee hala dejiyow leehay dad kale ma celi kara sheegi ma kariyo dadka waxaa loo aqli yahay meesha waa ka celshay waxaan rabaa in lagu soo baxo baaqayga waxaan ku daraa baaqa nabadda ee ummadda jeedihayso aan ka mid dhigaa waxaan rabaa meeshaas mawduucaas inaan uga baxo cabsi inaa ka muuqato dadka la cabsiyahayo maxaa in la barakaciyo dadka markii la rabo waalidooda la gubaa dadka la barakaciyo waa maana dagaal caadiya maana dagaal laga soo fikiro waayo waxa meeshaas ka dhacay wixii laga soo fikirana waxay dhali doonaan wax laga soo fikiro wax laga soo fikirana qayr dhali maayaan cabdicasiis oo ka fiirsan ku leehay lafta gareen ka fiirso meesha dheeriyaad ku tahay adoo dheeri ku aad dhibaataha keenin waxaan rabaa kelmaddaas waxaan rabaa inaan ku daro oon u hambalyeeyo dowladda soomaaliya oo gacanteeda gaartay ciidamada joogo saldhigooda yaha boosaaso ee BSF-ka oo gacanta soomaaliya ay gaartay xukuumadda soomaaliya waa ku mahadsan yihiin waxaan uga mahad celayaa ra-iisul wasaaraha madaxweynaha kulliyaan uga mahad celiyaa ciidamada soomaaliya ku soo biireenaa la yidhi waxaan raadiyaho inana isku biirid waaye kala biirid maahan odayaalo dhadhalaho baarlamaanada ka hadlaayo aqalka sare iyo waa arkayey waxaas waxba ku imaamayaan waxbaa kusii fogaahayo waxa kusii fogaahaya ha layska dhaafo ciidamada waa ku soo biireen ciidanka soomaaliya waana u mahad celaynaa shacibkana waa sugaynaa meeshaas xoogaa wax baa ka jiro wax soomaaliya caqabad ku ahaa ka socdo laakiin maalin kalean mawduuceeda iyo waxeeda ka hadli doonaa hadda juuq ka malihi waxa waaye ninka dhalahoo kuusanoo maha joogo ee rabo in soomaaliya muqdisho laysku diriro annuu ku reesta asaga dagaal muqdisho ka dhaco ilaahay ha naga haayo aan leenahay waana dadaalaynaa naftirkayna siciidan iyo diyaaradaha wax qaadaya imahay ku soo dejayaan maalimaan ka sheekay doonaa waana ka hadli doonaa caqabadda ay dalkan ku yihiin waa ka hadli doonaa laakiin beriga maahan beriga wadaad la gubayaan ka hadlow hayaa waxaa kaloon rabaa inaan baaq u jeediyo galmudug dagaalaa ka socdo dhedhela oo dagaal doqoneeda oo ilmayo naago lagu dilo waayo waxaan rabaa ilmahaas naagahaas la dilaayo wax arwaaxa ma dhalayaan wax sharafa ma dhalayaan waxaan rabaa qoorqoorow meeshaad xukuntay in ilmayo naago lagu bereeyo cawo madow inta labada dhinacba leesu dhaco waxaas walax shabaab lagu yaqiino waaye wax oo qaraabo lagu yaqaan maahan iyo dad berri inay isku nacfiyaan la rabo dagaalkaas ha la joojiyo dagaalkaas dharkow naga siibaa kulligeenuu dharka naga siibaa
ha la joojiyo waa dagaal doqoneed dagaal mindhicireed warwaayeel wax dhalay ee ilaahay saddex xaq siiyey ee hooyo ahaa la dilahaa lagu leeyahay ilmaa la dilaa xukun xuman xataa ka arkayay nin ilmihiisi la laayaa dhaara la dhahaya galmudug war dhaarta maxay kula waajibay ilmihiisiyaaba la laayo loo dhaarihaa maxaa loo jeclaysayaa daalumka waxa dila maxaa loo jeclaysaa war waxaan rabaa waxaas waa ammaanayna galmudug xoogaa dhadhalayo cagaaranayna tustay halkan fadhiidka ahoo caliguudlaabaa camal ma ahan oo uun raba aqal la gubo iyo dadow shidaal ina ku shubo ilmayo naaga gubaan rabo ma ahan waa idin jeclaysto weynaha galmudugay fadhiga ka kaca dad dhiifoon oo waxay dhibaatahay ku keeni karta xataa ogaatiin war ilmayo naago in la yidhaahdo dudublaya salaamaala isdilaayo war salaamaalow meeshaad haysatiin idinkoo may haysatiin inaad fiirsatiin maa ahlu aqdi wal aqliyaad leedihiin war fadhiga ka kaca war dadka kale celsha war mas-uuliyadda inaan u qalannaa la rabaa haddii nala saara asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu go'aan ayaan ku gaarnay inaan soo qabanno kuwii dilay odayga waayeelka ah waxaa sidaasi sheegay guddoomiyaha gobolka shabeellada hoose ibraahim aadan cali najaax wixii meesha ka dhacay haddii sida ummadda soomaaliyeed ba ay uga wada naxday ay dowladda koonfur galbeed maadaama muwaadinku yahay muwaadin reer koonfur galbeed ah runtii ay arrintaas ay aada u dhigtay go-aankii la qaatay waxaa kasoo baxay in ciidamada ay howlgal ay qaadaan oo ay bilaabaan oo ilaa hadda saacaddan aan kula hadlayana howlgalkaas uu socdo runtii xildhibaanka oo xildhibaan federaal ah waxyaabaha uu media marinayo maaha wax ummadaas walaalaha ah u danaynaya waxay muujinayaan mas-uuliyad darro oo runtii uu caadiyeystay oo uu leeyahay cid kala xisaabtanta marka ugu horeysa waxaan rabaa baarlamaanka federaalka oo ugu horeeya guddoomiyaha baarlamaanka xildhibaankaas in la anshax mariyo bismillahi raxmaan raxiim marka ugu horeysa waa mahad celinaya t v-ga universal iyo weriye cabdicasiis okay marka ugu horeysa waxaan rabaa halkan inaan ugu tacsiyeyo si guud ahaana ummadda soomaaliyeed iyo gaar ahaan ummadda gobolka shabeellaha hoose degmada walaweyn ku nool dhacdadaas foosha xumeed ee ka dhacday runtii diinteenana aan qabin dhaqankeena soomaaliyeedna aan qayb ka ahayn oo nasiib darada ahayd degmada walaweyn ka dhacday inta dhimatay oo ehelka ugu horeeya ninka odayga ah allah u naxariistee ehelkiisa iyo waalidiintiisa iyo caruurtiisaba waa uga tacsiyeyneynaa waxaan rabaa cabdicasiisow inaan waxyar dib kuu celiyo runtii deegaanadaas muddooyinka hadda ugu dambeeyey waxay ku jireen xaalad nabadeed iyo soo kabasho dib u heshiisiin dowladda koonfur galbeed runtii ay deegaankaas ka sameysay oo dadaalo fara badan oo isku xirxiran ilaa iyo stateka maamulka gobolka kan degmada ciidamada amniga ah ay ka shaqeeyeen oo meel fiican uu soo gaaray iyo dadka deegaankaas kasoo jeeda oo nabadoono runtii sharaf leh oo nabadda macnaha ay leedahayna yaqaana oo iskaashaday laakiin 3 bilood hadda ugu dambeysay runtii waxaa soo laabtay niman sidii nabadiidka oo kale u dhaqmaaya oo ummadda meesha ku nool inay nabad ku wada noolaato aanan dan ugu jirin oo dhibaateynta dadka shacabka birimigeedada ah runtii caado ka dhigtay dadaalo fara badan ayaan sameynay ka maamul ahaan annagoo isku duuban maamulka gobolka iyo kan degmada iyo ciidamada amnigaba waxaa la sameeyey horumaro wanaagsan oo dadkii faldambiyeedka geystay intii carartayna waa lagu raad jiraa intii kalena waa lasoo qabtay waa dhacdooyinkii hore oo dhacdadan hadda ka horeysay runtii deegaankaas ka dhacay sidaas lamid ah dhacdadan hadda ummadda soomaaliyeed oo dhan runtii ay ka argagaxday oo maamulka gobolkan iyo dowladda koonfur galbeed iyo qof kastoo damiir leh runtii waxa lala yaabo ay la noqotayna waxaan wadnaa dadaal aada u xoog badan howlgalo ayaa socda insha allahu tacaala dadkii odaygaa soomaaliyeed oo deegaankiisa jooga oo dadkiisa dhex jooga oo dalkiisa dhex jooga xadgudubka heerkaan la-eg u geystay insha allahu tacaala wakti yar oo kooban gudihiis nolol ama geeriyay ku keeni doontaa dowladda haddii aan laydho waa tahay guddoomiye dabcan colaadda gobolka shabeellada hoose gaar ahaan
tuulooyinka iyo deegaanada hoostaga Walaweyn waa ay soo noqnoqdeen xildhibaan ka tirsan baarlamaanka Soomaaliya oo la yiraahdo Daahir Amiin Jeso waxa uu leeyahay colaadaasi waxa ku lug leh ciidanka iyo maamulka Koonfur Galbeed ee Soomaaliya waana mid soo laalaabatay eedayntaasi maxaad ugu jawaabaysaa mise ma jirtaa runtii xildhibaanka oo xildhibaan federaal ah waxyaabaha uu media marinayo ma aha wax umadaas walaalaha ah u danaynaya waxay muujinayaan mas-uuliyad darro oo runtii uu caadiyeystay oo uu leeyahay cid kala xisaabtanta marka ugu horeysa waxaan rabaa baarlamaanka federaalka oo ugu horeeya gudoomiyaha baarlamaanka xildhibaankaas in la anshax mariyo maxaa yeelay waxyaabaha uu ka shaqeynayo waxyaabaha uu ku hadlayo dhammaantood waa wax kasoo horjeeda mas-uuliyadda uu sheeganayo oo xildhibaan qaran oo Soomaaliyeed ah sidaas la mid ahna oo wax dadka ummadda Soomaaliyeed ee nabadda ku wada nool runtii dhibaato ku ah oo tafaraaruq iyo dhibaatada iyo dilalka iyo xumaatada ayuu mar walbaba dhiirigeliyaa sida saxda ah dowladda Koonfur Galbeed runtii deegaanadaas muddadii colaadahan hadda ay jireen waxay ka qabatay shaqo aad u muhiim ah aad u fiican oo ay odayaasha laftirkooda oo deegaanka degan nooc walba ay yihiin ciday doonaan ha kasoo jeedaan ay markhaati ka yihiin oo intay isku keentay ay wada hadal siisay ciidamadii runtii deegaanka dagaalada ay ku dhex mareen ay degmada Walaweyn isugu keentay oo amniga sugitaankiisa ka wada qayb qaadanaya waxaasoo dadaal ah oo dhan waxay ka turjumaysaa mas-uuliyadda dowladdan Koonfur Galbeed ka saaran si guud ahaan shacabkeeda runtii annaga shacabka annagii oo meeshaas degan oo iswalaashanaya oo isgarabsanaya cadowgan qawaariidka Soomaaliya nabadda u diidan la wada dagaalamaya nabad ku nool ayaa dhammaanteenaba hadafkeenu uu yahay ka dowlad ahaan waana siyaasadda guud ahaan Koonfur Galbeed oo dhan ay ku dhisan tahay waxaan ku xaqiijinayaa inaysan jirin wax ku lahaansho dowladda Koonfur Galbeed ah oo dadkan dhibaatada horey u gaartay iyo kuwa hadda dhibaatada geystayba ay qayb ka tahay laakiin waxaa waayo dhaweyd socotay in ciidamada Koonfur Galbeed ay howlgallo wadeen oo deegaankaas dhibaatooyinka ka dhacay howlgallo ka wadeen beesha halkaasi degan qofka laga dilana ay eedeynayaan ciidanka Koonfur Galbeed oo ay leeyihiin waxaana la diriraya ama dadka dilaya waa Koonfur Galbeed marka sidee bay isku qabanaysaa inaad ka shaqaysaan inaad halkaasi howlgal aad ka samaysaan oo dad soo qabataan in dadkii wax laga dilay ay yiraahdaan waxaana dilaya waa ciidan Koonfur Galbeed gudoomiye ma jirta arintaasi wax badan ayay dadka warbaahinta ka hadleen iyadoo aysan ahayn xildhibaanka kaliya oo eedayntaasi uusan soo jeedin oo dad kale ay jiraan walaalo horta waa mahadsantahay aniga hadda gobolkan waxaa la iisoo magacaabay sanadkan bishii koowaad January ayaan mas-uuliyadda gobolkan la wareegay laga soo bilaabo waqtigaas ilaa iyo hadda waa la xaqiijin karaa ma jiro ciidan Koonfur Galbeed oo daraawiishta Koonfur Galbeed ah iyo dad kale oo deegaanka ah oo dagaal ku dhex maray nawaaxigaas haba yaraatee ma jirto laakiin waa la heli karaa inay isgarabsadeen howlgalo ay sameeyeen oo deegaanka nabad looga dhigayo oo dhammaantooda waan laga warqabaa dadka deegaanka waa wareysan kartaa wixii aniga iga horeeyay mas-uuliyaddaas dad kale hayay ciddii haysaa laga wareysanaya laakiin intaan hadda aniga aan joogay waxaan ku xaqiijinayaa inuu iskaashi jiro oo ilaa haddana uu socdo oo uu jiro oo ciidamada nawaaxigaas ka howlgala nooc walba ay yihiin ay wada shaqeynayaan ayna u taagan yihiin inay xaqiijiyaan badqabka dadka shacabka ah ee meesha ku wada nool kuwa oo dhibaatooyinka meeshaas ka geysanaya ee dhuumaaleysanaya ee duurka ku jira ee maalinba qof muwaadin Soomaaliyeed ah runtii ku dhibaataynaya wadooyinka iyo meelaha kale oo magaalada banaankeeda oo duurkeeda ahna inay soo qabtaan ay ciidan ku taagan yihiin insha Allah taala qodobkan waa la xaqiijin doonaa hadii Allah waxaa nagu maqaalaha in saakay iyo xalay ay dhaceen dagaalo sokeeye oo colaado leh oo markaa daba socday dilka qofka rayidka ah ee sida weyn loogu argagaxay marka ay dhaceen oo tuulooyin la gubay ma jirtaa colaadaasi maxaa ka qabateen horta waxaan ku xaqiijinayaa shalay ciidanka amniga iyo maamulka gobolka ka degmada iyo stateka guud ahaan oo wasaaradda amniga dowladda Koonfur Galbeed ay qayb ka tahay
in go-aan midaysan la qaatay runtii dadkii faldambiyeedkan geystay waqti kooban in lagu keeno cadaaladda. waad aragteen go-aano oo waxaa soo baxay oo arrintaas si wada jira ay dowladda koonfur galbeed ay ugu cambaareynayso oo runtii ay wixii meesha ka dhacay hadde sida ummadda soomaaliyeed ba ay uga wada naxday ay dowladda koonfur galbeed maadaama muwaadinku uu yahay muwaadin reer koonfur galbeed ah runtii ay arrintaas ay aada u dhigtay. go-aankii la qaatay waxaa kasoo baxay in ciidamada ay howlgal ay qaadaan oo ay bilaabaan oo ilaa hadda saacadda aan kula hadlayana howlgalkaas uu socdo biidin illaahi tacaala. markuu soo gebagabowana bulshada soomaaliyeed ayaan usoo bandhigi doonaa haddii alla idmo. howlgalkana hadafkiisa ugu weyn wuxuu yahay dadkii dhibaatada geystay muwaadinka soomaaliyeed oo dadkiisii deegaankiisii dalkiisa dhex jooga jariimadaas u geystay in cadaaladda la hor keeno. howlgalkaasaan annaga wadnaa, ciidanka kaasaan ku ognahay, shaqo fiicana ilaa haddana ay qabteen aan ognahay. haddii ilaahayna markuu howlgalka soo gebagabowana bulshada soomaaliyeed aan usoo bandhigi doonaa natiijadii kasoo baxday haddii alla idmo. wasiir ku-xigeenka gaadiidka ahna xildhibaan jeego oo waraysi bixiyey ayaa la weydiiyey waxaa dadka aad matasho u qabatay 4 sano ee lagu doortay waa dhammaaday maxay tahay? 4 sano sii dhammaanaysa baarlamaanka waqtigiisa gabagabo sii maraya. ka xildhibaan ahaan adigu dadka aad matasho maxaa hal iyo labo sheegi kartaa u qabato? in media soo istaago hebela waxa soo qabtay iyo hebela waxaan u qabtay iyo hebela waxaan u qabtay la qofkii ii baahan igala soo xiriiri karo. qof walba oo ku soo wacla markaas oo arrimo si gaar ah kaaga baahan ma garanaysaa? numberkayga aniga gaarka u leeyahay waayba. rajima qabtaa inaan soo laabay taas Allah waclam. rajidaad kale waa rajeena inaan 50 sano joogan rajeena 50 sano hadda ka dhiman inaan joogan rajeena dad kale inaan fursad siisid de wixii ilaahay ii soo qoro adima ii diidi karo ya ilaahay hadduu ii soo qoro inaan soo laabto adima ii diidi karo. adigoo xukuumadda ka tirsan waxyaabo qaldan haddaa aragtid inaad ka hadasho maxaa diiday mise xilkaa lagu ilaalinaa? wixii dana caam ahane wixii aan awoodo wax ka qabtaa wixii aan awoodin maba awoodo laakiin been inaan u sheego qofka oo de aan mahweeliyo oo xafiis iigu imaaw oo intii ka dhac dadka ka shaqeeyay. jeego ayaa garabkayga taagan waxa uu ka mid yahay mudanayaasha golaha shacabka baarlamaanka jamhuuriyadda Soomaaliya. xilwaana marka hore darsan TV ku soo dhawow. marka xigta maanta sharciga la keenay baarlamaanka wuxuu ahaa sharci xasaasi ah xilwaanada ku kala qaybsameen ka waran. waa maasan tahay horta dabcan sharciga maanta midna waa la ansixiyo kii maaliyadda ahaa midna doodeera laga galay kii kufsiga ahaa. marka maanta aqrinta koowaad ahayd dabcan mabaadiida ayaa laga fiiriyaa markuu aqrinta koowaad sharciga yahay. mabaadiida ayaa dood laga keenay in shariicada islaamka muwaafaqsan yahay muwaafaqsana. marka dabcan haddeer wasaaradda ayaa sharcigaas dib ka soo sixi doonto wixii ka qaldan. guddiyaa jiro oo de guddigaasana gacanta ku qaban doono. shariicada islaamkana asal u ah haddii kufsi uu yimaado meesha qofka bini'aadanka ah oo yani xadgudubka lagu sameeyo dumarkaane haddii qof raga oo guur soo mara uu kufsadone dee shariicada islaamka waxay ka qabtaa dil iyo in laga masaafuriyo eriyada markaas ama goobta markaas oo falka ka dhacay. dabcan doodda intaasay ahayd wax kaleeto oo lagu kala qaybsanayna ma jirin. baarlamaankanna shaqadiisa iyo xeerka la dejinayane dee waxaa asal u ah marka ugu horayso shariicada islaamka. waxaan shariicada islaamka waafaqsanayn dabcan meeshaan lagama ansixiyo. dabcan doodda shariicada islaamka muwaafaqsan yahay iyo muwaafaqsanay ahayd. dooddaasna way timaadaa mabaadiida guud markaas xeerka la keenayo muwaafaqsan yahay shariicada islaamka waaye. waa maasantahay. waddanka hadda wixii ka dambeeya arrimo doorashooyin oo galaya doorashada golaha deegaanka la filaya in dhawaan ay bilaabato. siyaasiyiinta mucaaradka golaha mustaqbalka Soomaaliya oo ku midoobeen garoowa ayaa la filayaa inay shir ku qabsadaan. ma fahmin. siyaasiyiinta mucaaradka Soomaaliyeed muqdisho banaanbaxyo kaga dhawaaqeen uma aysan suurtagelin. siyaasiyiinta Puntland iyo Jubbaland Axmed Madoobe la kulmayaan halkaas u tagayaan ka waran. dabcan banaanbaxa dalkan dastuurkiisa ayaa siinayo qofka haddii uu si nabadgelyo u banaanbaxayo xaq uu leeyahay. dawladdana ciidamo u diyaarsan oo banaanbaxyada noocaas oo kale oo nabadgelyada lagu qabsanayo ciidan ilaaliyaa jira. diidmo gaar ah oo dawladda ay u diiday banaanbax ma jirin.
waxa la isku haysto wuxuu ahaa banaanbaxan oo qoriga lagu waardiyeysanayo ciidamada aan la aqoonayo dalkan uu ka soo gudbay marxaladii in qof qori iska soo qaato magaalada iska dhex mara ayay ahayd shirka ah sheegaysa oo de garowgana de adaa hadda sheegaya ma naqaan annaga meesha ay maxay ku qabsan doonaan qof mucaarad ah oo maanta dalkan joogana xaq u leeyahay dalkan wixii ka qaldan oo uu arkay inay qaldan yihiin oo si sax miiska uu soo istaago uu yiraahdo waxaana qaldan koob iyo laba hala saxo laakiin carqalad de horaan uga hadla meediyaha aan shakhsiyan aragtida aan ka dhiibtay dalkan carqalad iyo soo istaag oo ka gudbay mana ahan wax hadda dib loogu laaban doono ilaahay hadduu yiraahdo in qof taladan aniga qayb kama ahayn iyo raad kuma lahayn iyo waxba kama ogeen waxaan rabaa inaan uga faa'iidaysto dalsan dadka aad sheegayso ee mucaaradka inta badan baarlamaankan ay ka tirsan horta waxaan nasiib daraa marka qof baarlamaanka ka tirsan oo awoodo wixii uu diidan yahay inuu baarlamaanka si sharci ku diido uu awoodo inuu yiraahdo codeyntaan aan uga adkaaday maxay ahayd baarlamaanka laakiin inuu banaanka ka taagnaado baarlamaanka oo dibjoog uu ka ahaado oo golihii shacabka ka tirsan haddana dhahayo waxa baarlamaanka ay ka shaqaynayaan waxba kama jiraan waay dabcan qaarkood baarlamaanka inuusan ahayn baarlamaan jiro eega ka tirsiinna waa aragtimidiha aad ka aragteen marka waxaan leeyahay dib ha loogu soo laabto baarlamaanka wixii dooda sharciyan baarlamaankana xaq u leeyihiin ay uga doodaan baarlamaanka ku soo laabto mas-uuliyiinta mucaaradka oo baarlamaanka ka tirsan waxay sheegeen in baarlamaanka xubnaha jooga qaarkood wasiiro ku-xigeenno iyo wasiiru doolayaal ay yihiin sharciyada la keenno dowladda wixii ay wadato haddii ay sax yihiin haddii ay qalad yihiinna ay ansixiyaan baarlamaankana uu noqday meel xukuumadda iyo dowladda soomaaliya gacantay ku hayso arrintaas ma idiin muuqataa ini maya horta waxaan rabaa baarlamaanka 275 xubnood ka kooban yahay golaha wasiirada wasiir ku-xigeen iyo wasiir dawli iyo wasiiri marka la isku darna waa 70 meeyo marka 200 oo qofood iyo 70 qofood kala adkaanayo wax sax ma xukuumadda aniga hadda xukuumadda ka tirsanahay xukuumadda sharciyadeeda inaan difaacan xaq aan u leeyahay oo xukuumadda aan ka tirsanayo adiga haddii aad diidan tahay waxaan difaacay imaw igu ridi codeynaa baarlamaankan ugu kala baxay cod iiga adkaaw laakiin bannaankaan taagnaana baarlamaankan waxaan ku tilmaamaa meel dee aan sharciyad ka shaqaynayn baarlamaankan waxaan ku tilmaamaa baarlamaan jir inuusan ahayn adigii baarlamaanka ka tirsanaay inaad ku tilmaamto baarlamaanka inuusan baarlamaan jira ahayn inaad reerka kursiga ka soo qaadato u celiso aad tiraahdo aniga kursigiina kuma shaqayn kara intaan kadibe qof kale u keensada kaaga fiican xildhibaane aad xukuumadda hadda ku jirtaa sidaa sheegtay waxaa jira waxyaabo qaar oo siyaasiyiinta mucaaradka ay sheegeen inay qalad yihiin guud ahaan baarlamaanka in la meelmariyey arrimaha dastuurka ka mid ahaa marka adigoo xukuumadda ka tirsan waxyaabo qaldan haddaa aragtid inaad ka hadasho maxaa diiday mise xilkaa lagu ilaalinaa maya fiiri xilka horta iyo in baarlamaankan xaqiiqdiisa laga hadlo laba waayo xilkan aniga hadda aan ku fadhiyo uguma fadhiyey inaan buuq sameeyo inaan difaac qaldan sameeyo uguma fadhiyey xilkan waa xil reality marka laga hadlo reer ahaan aniga aan u qaato waayo ninka u maleeyo in aan qayle ku helin qayle kuma helin haddii aan qayle wax ku helayo يعني وزير ريالك الوزيره دان قاده لها يعني قايله ما كويلين maxaa ka wadaa يعني طبعا hadalka waxa ugu jeeda buuqaas mise waxba difaacda oo aan sharci ahayn mucaaradka aragtidooda siday ay ka hadlayso ma anigu wixii sharci ahaa inta ku difaaca sharci darana kama shaqeeyo sideeda waxa rabaa saaxiibaday wixii sharci dara ay u arkaan xaq u leeyahay ka doodaan ama yimaadaan ka doodaan wixii xaq u leeyihiin inay diidaan wixii aan ogolaanayo aragtidooda ay banaanka soo dhigtaan أنا أركتي على سومان مصلحة مركز جرتو دلكان مصلحة لو أهان ربا أنا وأرك سومان إن شرع دوان أنسحية جرو وعرورة الدين تيروان قادن كران أها حلوانة ذي أنسحية برلمان كان لقى أنسحية شرع ده سوق لها ديات حلوانة تين وشعبك أهل ليس محاد أقصور جيسم يصير طبعا شرعي أو شرعي عرورت هدي دين الإسلام كسور وحنا كنا هرتان أدو دقيسو wax walba oo diinta islaamka ka soo horjeedo aniga iyo kuwa ilamadka raali kama nihin horta sharcigaasna dabcan dood badana ka timid wasaaraddiiyana maxay iyo guddigiina dib ugu laabtay wixii ka qaldan waa laga soo sixi doonaa laakiin
waxa asal iyo asaas u ah meeshan golahan shacabka dastuurkana asal u ah diinta islaamka laakiin fikir siyaasadeed dadka in lagu qaldahay sax ma aha ugu dambeyn xildhibaane 4 sano sii dhamaanaysa baarlamaanka waqtigiisa gabagabo sii maraya ka xildhibaan ahaan adigu dadka aad matasho maxaa hal iyo labo sheegi kartaa u qabay dabcan dadka aan matalo aniga waxaan u qabtay waa wax aniga iyaga naga dhaxeeyo iyagana og mustawaa maanta aan soo gaarsiina waa iyagaa og laakiin in media aan soo istaago hebelaan waxaas u qabtay iyo hebelaan waxaan u qabtay iyo hebelaan waxaan u qabtay waa maangaabnimo waay ma fahamtay dadka aan matalo Soomaaliya matalaa gaar ahaan dad aniga gaar ah aan matalaa jiro inta badan intoodaba waxaan u qabtay waa wax ay eegana og yihiin annaa ogahay uma Soomaaliyeed qaarkoodna og yihiin laakiin media inaan soo istaago waxaan qabtay maaha macnaheeda wax hadda aniga isoo kordhay adna ku soo kordhay maaha su'aashaas waxa waa su'aal marka in la sheego un baana leedahay dadkayga ugu qanacsan Soomaa dadkayga iyo Soomaalida ay ugu qanacsan dadkaada laakiin waa badan yihiin Soomaa meel kala duwan ay joogan dadka qaar oo fursad aan ku heli karin oo kula soo xiriiraan oo kala jiraan number oo horta waxa jira ani aan leeyahay oo WhatsApp igu sameeysan qof Allah qofkii ii baahan igala soo xiriiri karo qof walba oo ku soo wacla markaas oo arrimo si gaar ah kaaga baahan ma kala yeeshaa numberkayga aniga gaarka u leeyahay waaybo qof kasto waa ka qabtaa arintiisa gaarka igala hadla waxa awoodan waa awood waxaan awoodin waxaan dhahay ma awoodo horta sideedaba aniga waa la yaqaana dabcan dadkaasna way fiirsan doonaan waxaanan awoodin waxaan dhahay waxaas ma awoodo mana qaban karo wixii aan awoodo aan u qaban karo ummadan waa u qabtaa laakiin wax u dhaxeeyo oo been aan u sheego ma dhacdo qofka de uu soo waca wixii dana gaar ah aniga asiga ka macaamilayno oo shakhsiyan wixii dana caam ahana wixii aan awoodo wax ka qabtaa wixii aan awoodin ma awoodo laakiin been aan u sheego qofka oo de aan mahweeliyo oo xafiis iigu imaaw oo intii ka dhac dadka ka shaqeeyay waa maasanta su'aal kale ugu dambeyn rajima qabtaa inaan soo laabay taas Allah waclam rajadaada waa rajeynaa inaan 50 sano joogan rajeynaa 50 sano hadda ka dhiman inaan joogan rajeynaa dad kale inaan fursad siisid de wixii Ilaahay ii soo qoro adima ii diidi karo ya Ilaahay hadduu ii soo qoro inaan soo laabto adima ii diidi karo laakiin haddii fursad helayo doo soo dhaweynaa laakiin aad tartantaad yartay dabcan ها waxaan rabaa mataqaana qofka bini aadanka horta mulkiga Ilaahay bixiyo in taas lagu fikraa la rabaa mulkiga in Ilaahay bixiyo تشال إلهي سيء برين إلهي سيكره بر قف كلا إلهي وعلى فكرة لكن رجع أنت لا قبطائي سؤال معه طبعا واجوجا إن الجوجا ربع وقدام بينه حافرين ودرس جار هذا دتك أدمتش دتك أنا مثله سومالي ولا نافرين ودرا دت جار هذا أنا أنفرين ودرايا ما جرت سومالي ودن وحربا دور شوينا صعد دور شوين كان إلهي وحكى رجينا سن بدون إنه ودعان محربة ضدك أمثلوا إني دور شوين كان كفايدستان عد بحياش أي صباحان ضدك ربعين شرحان قلها ديجان كوجهرين إني قيب كسر نقدان طبعا صومالي وطننا وحن ورجينا إن بتجليد على شقي أمني قدل كان وها جاي محربة إن أوقف فايدستو ضلسن maalmo horeeto safar shaqaan ku maqnaa waxaan arkay media siiba aqalka sare in gobolka banaadir nabadgelyadiisa khatar inay ka jirta la sheegay marka ana oonan hadeer hebel iyo hebel aan dhahaynin waxaan rabaa inaan nasiib daro weyn aan ku tilmaamo arrimaha noocaas dadka ku tilmaamay magaalada nabadgelyaha ka jirto isku socodkeeda furan wadooyinkii qaarkood xirnaaya dib loo furay muxuu ahaa waa aragtay sportska meeshuu maraayay madaxdii dalka ka qayb galaysay maxay ahato wadooyinkan muxuu ahaa cabsida laga muujinayna adeegoodii socdo cadowga ummadda Soomaaliyeedna waa laga adkaaday in yaani fikir ahaan cadowga ummadda Soomaaliyeed ama argagixisadii fikriyan la yiraahdo dalkii nabadgelyadiisa aad u liidato la isku mahalayn karo waa dhiirigelin xogaha dadkaas loo sameeyay cadowga marka dadka saaxiibada hadii xildhibaanada aqalka sare waxaan dhihi lahaa in maankin dib u soo celisaan
amniga iyo siyaasadda kala saara dalkan mucaaradnimadiisa iyo amnigiisana kala saara de mucaarad waa noqon kartaa xaqa u leedahay dalkan madaxdiisa waa mucaaradi kartaa aragtidaada ku mucaaradi kartaa laakiin dalkan in aad suurad xumayso de mucaaradnimadiisa kaa gelin marka waa maasantiin wixii su'aalaha qabtana way weydiin kartaa ismaaciil cumar gelle madaxweynaha Jabuuti oo ka hadlay doorashada mar kale oo isku soo sharaxayo hadalkiinii waan dhageystay ka hawl ay xambaarsiinaya aniga waxaan qabaa xaq uma lihi anigu inaan idhaahdo waan dhaqaaqay waan naga tegay hawsha aad iminka aniga ii diraysaan hawl fudud ma aha haddii aanu dadweynuhu ila socon haddii uunan dadkeennu fahmaynin waxaan leeyahay haddii waxaan leenahay annagoo gacmaha haysanna doorashaan galaynaa hore waa loo soconayaa dadka inta nala joogta in ka badan iyaan soo jiidanaynaa hawshaas inagayna taallaa walaalahay بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين سيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم ما أنت ومالين قارة ومالين تاريخ دقاليسا ومالين ددك ururka RPP iyo UMP kolka la isku daro PSD iyo PND lagu daro ireeya laba iloobi karo qalbiga ayaan idinka salaamaya فريد iyo RPP complicité باقينا waan maqlay hadalkiinii waan dhageystay heesihii waan dhageystay dadweynaheena waxa ka soo baxaya sawaxan waa ka qalbiga ka soo baxaya ka wanaaga doonaya ka hawl ay xambaarsiinaya aniga waxaan qabaa xaq uma lihi anigu inaan idhaahdo waan dhaqaaqay waan naga tegay حق مالي وحا عن مدح وهي وبني آدم وي ودل يروي ودل وين وي حق قلبي جن ودل جعل إنه نولاده دتك كلا لا جانقاده لا ترتمه هريها ووضه وحا كم ممنوعانا هيسكر ريبو وحا وجعل يهي دتكي سلا جعل يهينا حسميو dulqaadkii loogu talagalay dhulku kolkuu dhibaataysan yahay gobonnimo dabadeedna ay dhibaato weyn meesha ka timiday oo ilaahay waxa uu noogu talagalay isaga og annaguse dadaalka inaan badino ardayda wax baratay wixii aan sanad walba ku soo kordhinaynay annagoo alla og yahay waxaan hayno u hayno xoolo tiradooda alla nala og niyad baan hayna waxaan haynay rabitaan baan haynay casiimad baan haynay
waddankani dadkaa kale inbuu la mid yahay dhalashuu ku dhimanayaa baa lana yidhi kolkuu soo dhashaba uu baktiyi doona waad ku dhegaysiin iniguya vous mourrez avec lui ilaah baan leenahay dadkeennu sabir badan bay leeyihiin dadkeennu dadka uu jecel yahay bari hore ayaa la yidhi jabuuti mugu weyn yaa loo bixiyay anagu ma bixin dadaalkaasi iyo kolkaan eegno waxa hareeraha ka socda dhibaatooyinka ka jira ama dadkaasi iyaguba mas-uuliyaddooda ha qaataan ama wax dabadda uga yimid ha noqotee dhibaatooyinkaasi annaga inagu duldhaceen waan ka dabaalanaynaa baan idho waan karaynaa in aan sare joogsanno in aan dadkeenna taakulayno in aan horumarkooga ka shaqayno in aan nabad ka shaqayno nabad iyo xasillooni ma kala maarmayaan labadaas waxa aan leenahay hawsha aad iminka aniga ii diraysaan hawl fudud ma aha haddii aanu dadweynuhu ila socon haddii uunan dadkeennu fahmaynin waxa aan leeyahay haddii uu hadallada qaarkood ay ni garab marayaan ma suuroobayso inaan hore u socno suuroobi mayso waxaan leenahay annagoo gacmaha haysanna doorashaan galaynaa hore baa loo soconayaa dadka inta nala joogtay in ka badan iyaan soo jiidanaynaa hawshaasi inagaynay taallaa walaalahay jaallayaasha xisbiga mas-uuliyiintooda la janqaadaya kuwa ay soo hoyn karayaan kuwa ay qancin karayaan kuwa ay u tilmaami karayaan waddada toosan annagu waxaan leenahay waddanku dadkiisa oo dhan uu u baahan yahay gebigooda kiina jiirjiidha waa iska weecinaynaa kii fitnadna dhex wada waan iska reebaynaa ee danta jecel ee dalka jecel ee diinta jecel ayaan annagu jecelnahay inuu nala rafiiqo oo aan wada marno jidka nabadda iyo horumarka waan aqbalay waxaad ii weydiiseen بارك الله فيك وحان آد يآد وفرحي ولشا إسأروريي إسأبابلي وحي إلهي فري كل دقاقي أجرك أي كدونيان أجر أي عليان ويان وحي اللو قبتي سيدي اللو سوكوريي dhibaatadii wax lagu baray intaba garanaysa inaan dadka caynkaas oo kale ah aan ku darsanno xoogga shaqaynaya oo waxa ay u qabanayaan waddankooga caafimaadkooga shaqo soo saarkooga shaqo abuurkooga ayaa loo baahan yahay waxay naga xaaraana dawladda dadka u shaqaynaya ama private ha iska noqdaanba qof albaabkaaga ka soo galay oo ka tiraahdo qolomaa tahay xaraam dardaaran kale oon leeyahay ma jiro waa xaaraam waa inaad xaaraantana iska ilaalisaan ووطني ومسلم ما جايو هنا بعده
يعني تراهد أدو ريركيت هاي أدو ريركيت نولبا سيتويانتيغا ولو سمية ودنا ما ودي سمية ما هذه بلا ولا نقول بلا وقلامات ودي سمية الله نو بركة ودنا كنا إلهي هنو بركة أرومركي سنة إن نقول تنو isaga un baan khaarijin karay cid kale oo wax noo tari kartaa ma jirto jamhuuriyadda Jabuuti ha noolaato dadkeena ha noolaado oo wariba hore ha u socdo oo waxa loo baahan yahay inaan nin walba ninka ka liita garab gasho أنا وحكي لك دونين إن ودنا النمو هذا وحكي سيسون هي أبو ناس وقرنا إن هلك عن جوجنو وقت عن جوجنو وح عن دونا إنه هلك عن كسرنا أنت بوان قرنا إنه وح كدونا إن أي كوميونتي انترناسيونال وحويان قرب قل لما قرب قلو نظام كيجنا لا ريسبكتيو هرمر كيجنا لانو قرقارو أنا أقول وحي أن قرقاري كرنا وقرقارنا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يتوبكوي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أدبادو مهتسنتين مالين وين ما أنت سيدا عد عيد وجوكتان سينا أرسكوغن مني بلن كينو سيدو وها إيويكان waan idinku soo dhaweynaynaa meeshani waxaan isleenahay ilaahay waddankeenna ha adkeeyo allaahumma innaa nas'aluka ridaaka waljanna waxa aan jecelnahay waddankeennu inuu horay u socdo aan jecelnahay inuu nabad ku noolaadaan jecelnahay inaan horumar gaadhsiinaan doonaynaa dhallintaan u jeednaa dhallinta iyo dadka waaweyn intaba waxaan doonaynaa mustaqbal wanaagsan aad iyo aad baad u mahadsantihiin aad iyo aad baan idinku mahadnaqayaa mahadsanidin gaddaga wassalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuh guud ahaana barnaamijkii xog warran ee caawa intaas ayaan ku soo afmeerayaa barnaamijka waxaa soo saaray halkan idinkala socodsiinayay anigoo Yaxya Cabdirasaaq Soofe dhanka farsamadu waa Maxamed Xasan Cabdullaahi tan intaan barnaamijkan mid la mid ah ku kulmi doono dhamaanteen oo isku duuban waxaan idinkaga tegaynaa nabaddiino noolu kulantay amaana Allah assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh iyo xubintii kalamaan iyo heestii gabagabada barnaamijka sida iyo amaana Allah كفتن آن حجينيو